qurux badnayd ayaa salaantay haye magacaygo saddexan bay iigu dhawaaqday waxay ii sheegtay in xaaladeyda ogeyd oo dhakhtarka inaan ku jiro xataa ay ka warhaysay oo maalmaha kamid ah ay igu timid oo aan hurday oo aan is arag waayahay niyahow cajiib suwerow dee qofka horta hadduu caan yahay waay dee ummadii la dhan baa taqaanaa waa tahay mid aanu caanna meehi haye dad waxaan isnaqaana waa friends iyo family waa tahay inantaas cid alle ciday ahayd ayaan garan waayey waad si inantii wanaagsan xataa waxaan ugu jawaabay ma garanayo waabaan khalkhalay moogtay waa tahay marka inantii ka dhaqaaqday baan war inantan madla dee qof niyo magacaago saddexni noloshaada garanayna ma odhan kara sidii yaa tahay ha ma odhan karaysid yaa tahay qofkiina haa deeto inantii waxa dhacday waxaan siri warbalnimo markay ka dhaqaaqday baan siri intaan soo ninkayga sidii aan koomay aan kasoo baxay oo kale waxaan siri warba inanta ka daba tago bal lambarkii waxaan inta kasoo qortay hadhow xogteeda qaab dadban u baadh waayahay inantii aduu dadkii waxbay ga dhex raacdo hablihii neerasta meesha ka shaqaynayay bay ahayd oo inantii waan waayey waayahay taariikhdu bishii 11aad bay ahayd 12 waa maalin isniina waa tahay waa goor subaxoo dhakhtarka weynu hargeysaa haye inantii maalinkii baa igu damaysay qolo aanu asxaabnaho meesha ka shaqayso habliyana mabale baan weydiiyo ku tira gabadhi ma war niho gabadh caynkaasi miyaad aragteen dee gabadha magaceeda noo sheeg war waa gabadh labiskaasi xidhneedo dharkaasi ku shaqaysaayo qaybtaasi ka shaqaysaayo waayahay gabadhii keena haye aduu maalmo baad dib u gashay baadidoon baan galay waay maalmo badanoo isniinaa baan imaaday shiftii dadku ku shaqeeyo moogta neerstiyo ni inantii waan waayey ilaa alaan inantii ma arag dee tamaasadana ka tegey kule inantii way garanaysaa iyadu oo horebo xaggan ka salaamayna xaggan aad baan uga salaamayna salaamayna muuqaalka haddaad daawanayso oo nin balmaasadaa ku siiya iskeen kule wax badanoo kale oo soo dheeb haa waayahay maasadan waxaa la idhaha hilow baan u bixiyey hilow wuxuu ihi maraan hiirka cayaarooryo horaad haween dhowran hor joogsaday mid heego la moodo aan ka hele intaanuba heeso bal aan hal tirshe qofoo heeladan hooyo bulge xataa heeladan cidda u geynaysa lama cayimino lama garanayo sababta iyadii baan la garanayn moogta wuxuu ihi hilaaca sidii ayaad hiraso ishii ku haleeshayba hadlasee haddeerna naftaad ka haw tidhibaa haabhaabatayun halkaad ka tagtee haddaan ku helaynin way hadime hanay mar qurun horteeda iskan way iskeenaysaa way iskeenaysaa hanay mar qurun horteeda iskeen hagoogta xishood adaa huwado hugaaga xijaabka waan ka hele haweenka dhan baad hormood u tahoo adaa hilin toosna hortiisa socdee horaan kugu sheegoo ma kaa hadhaye hanay mar qurun hortayda iskan inanta hanaan markaa u bixiyey anaa ubusi u bixiyey magacii saxdaa la helay wuxuu ihi haldhaal dumaray quruxsan hodankaa oobaanta bislaate ee hobtaa timahan hufanee adhaxda dul hurdaa ilbahan qorqormiyo lixaadkan hayaa dhaayihii ku hurtaa ilmada hollatee miyaan dib hawen hadalba u furaa war dhamaystira wuxuu yidhi hoygaad ku kortaa hanaan wacanaa hooyadii ku dhasheed horaad ka jaqdaa haybadda sharafta iyo hufnaanta ciddoon hiddaha gabadhnimo hanay dhaxasho halkaasna adaa samaha ka helee miyaan hantida cillada ka hurdaa niyo dhibaatooyinka gebigu leeyahay ka mid tihi qofkii markaad aad ammaanayso inaad dadaad qabiilkiis kusoo dartaba iminka gabadhan iyadii baana si fiican u garanayn haddana hooyadeed baan kasii hadlayayo dhaqankii hooyadaabaa sii sida taabaan sii lehay weersamaa laga hayay inantu mar hadday qurux badan tahay inta kalena anaga ugu darnaa qurux badneed ilaahay bay garanaysa intaba ma garanaysaa wuxuu yidhaahday haldoolka naftay halaan ku fareen had iyo goortaan hohoy ku arkiyo ilaa hadda waxaan hamuum u qabaa inaan ku hantoon dharaar ku helee hir baan dhex socda hawada marayee hanay mar qurun hortayda iskan uu maagii khiyaalii bay hodayee ninkuu hamiyaan habeen ladinoo hurdaanu gamcayn ma hoy gelayee hubaal qalbigaad hantaaqa bidoo adaa huriyo hilaaca ku shidee hadmad qudha hertay aad habaysaa way iskeenaysaa wuxuu yidhi hilaaca sidii ayaad hiraso ishii ku haleeshayba hadlasee haddeerna naftaad ka haw tidhibaa haabhaabatayn halkaad ka tagtee haddaan ku helaynin way hadime hanay mar qurun hortayda iskan hashii ku dhay baan hadhowdu sitaa markii dambe su-aal isweydiiyey war maalin walba adee dhakhtarka ku socdee qofkiina ma hayside maxaad wadaaniyow waan isweydiin aniga naftayda waxaan idhi hashii gudhay baan hadhowgu sitaa aantii luntay baan hambada ka sugaa tabtii hayinkuu hogaani hayaa intaa himilii higsaan ku socdaa waxaanan helaynin baan hamiyaa
jooga ee inantii raadinaya haye wuxuu yidhi hawaawiyayey miyaan ka hadhaa miyaan hadimiya haraad ka baxaa miyaan hibashadan humaa ku jiraa sidii ilmo hooyalaan u hadraa mid daanu hiloobay bay hagratee miyaan heryada heesaa ka furaa war faraha ma ka qaaday ma iska daayaabaan haddana waa niyadjabintiyo waxaan hoohayaan samre miyaan hakadaa halbowlaha dhiigga maad habasaa hadhow baad heli hankayma faraa hadaaqiyo baaq hawraan ma bashaa halaabti macan halowday luntee hantaaqmi darta hog baan ku dhacee marun hadhac geedla hooskiisa igey hadhac geedla hooskiisa igey hadhkiisa igey markaa inantaana balweynu ka warsugaynaayo waxaan leenahay hanay alla ilaahay uu kugu dhacay gabayne ballankiis ku soo xaadiriyo baris ku soo dhiib waayahay haddii aan fariin u dirku odhan lahaa caawa haweenka hablaha Soomaaliyeed badanka waxaa la yidhahdaa abwaaniintu gabayadooda dumarkay ammaanaan haddaan caawa fariin bal u dirku odhan lahaa hablaha Soomaaliyeed maxaad u diri lahayd caawa hablaha Soomaaliyeed horta anigu hablaha Soomaaliyeed aad baan u jecelahay hal inan baa ila dhalatay inantan adduunkan ugu jecelahay inta kale hablo ee Soomaaliyeedna iyadii ila mid yihiin hablaha waxaan fariin farayaa horta ilaahay mustaqbal fiican ood ku farxdaan ilaahay haydin siiyo labada daaroodna ilaahay haydin guuleeyo iyo laba midun ku dadaala hablow mid waa midda koobaad inaad sharaftiina iyo ciddigiina ilaalisaan intaad sharaf leedihiin baad nooshiin sharaftiinu hadday dhimato noloshiinu waxba kama jiraan bay noqonaysaa mid labaadna ku dadaalo aqoonta ku dadaalo oo waxbarta inantu maalinka wax barato ay aqoon yeelato nolosheeda iyadaa keligeed wadan karta markaa labada qodob inay ku dadaalaan baan rajeynayaa su'aal kale xagga kaa dhex marinaya inuu reerku baaboo inuu reerku burburo ma dumarkaa sababa mise raggaa sababa marka guriga la tago raggaa sababa inuu reerku baaboo raggaa sababa waayo horta cidda tagtaa waa gabadha ciddan la furayaa waa gabadha gabadhani sabab bay ku tegaysaa sabab baa lagu furayaa kolkii horeda way kusoo raacday sabab baana kugu soo dooratay marka gurigii aad keento sababtii ay kugu soo dooratay bay gabadhii kaa waayaysaa sababtaasaana gabadhii kaxaynaysaa soo waxaad fahantay maaha waxaa laga yaabaa imika waalidiinta inta ugu badan 70% ubadka waxaa korisa waa hooyada cadeedoo fadhiisata iyadaa u xamaalata iyadaa u shaqaysa 30% bay aabayaashoodu ay ubadka dar yeelaan sababta maxaa sababay raggii balwad baa baabiisay inay ma garanaysaa noloshii ay dhanka kale ay u isticmaalaan dhanka negative ahayd baa sababtay waxyaalo badan oo noocaas markay isku tagaan gabadhii mustaqbalkeedii baa iyadana ku baaba'ayo watan gabadhii gabadh walba la furayo marka raggan waxaan leeyahay warniyahow garaasada intiidaan guursan markaad garaasataan guursada baan leeyahay raggana waraysigeedu intaas ayuu ku dhan yahay intaynu waraysiga xigoonu ku kulmi doono dhammaantii joog aad baa mahadsantahay abwaan waad mahadsantahay walaal boqolkiiba waa ka baxayso ma